Cabdullaahi Axmed Daamir waxaan leeyahay war dhibaatadii hore ceergaabina ma joogin nabadeedina ma joogin laakiin cid baa ku warantay si wax kugu warantay ragga horta warayso Cabdullaahi ceergaab wax badan kama ogid raggii joogay xigtadaada haydeen Ismaaciil Xaaji Nuuriyo colaadii horena wax ka ogaa nabadiina wax ka ogaa Axmed kulli iyo Cabdullaahi nin wanaagsan baad walaalatiin oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo Soomaaliya meel walba laga jecel meel walba taga anigu waxaan isleeyahay dhakhtarkii Shiinaad qabateen waxaan doonayaa maanta inaan ka hadlo laba kelmadood oo mid ay tahay nabadgelyada ceergaabo waxaynu ognahay habeenkii dhaweyd dhibaatadii dhacday cid kastoo wax garada iyo cid kastoo aqoon leh wixii dhacay inaan raali ka ahayn cid Allah cidii dhibaato ay ku gaadheen Ilaahay waxaan uga baryaynaa in Ilaahay u boogadhayo dhibaatadaasina waxay ahayd dhibaato aan cidina ka tashan cidina ku wada socon cid raali ka ahaydna ayna jirin waxaan leenahay aanada tabadabadood waa la qabtaa ceergaabo nabad bay u baahan tahay in laga wada shaqeeyo u baahan tahay dadka aan ceergaabo joogin iyo kuwaan ceergaabo arag iyo xaaladeed aan ka warhayno waxaan leeyahay war ceergaabo wax ka garanaysaane annaga joognee nabadeeda iyo wanaageedana qof kasta xil baa ka saaran haday shacab tahay haday xukuumadda tahay haday culimada tahay haday ganacsatada tahay waxaan anigu leeyahay qof walba nabadda ceergaabo war xil baa ka saaran nabadda ceergaabo ka shaqay dhibaatada dhacdayna waxaan leenahay inayna dib inugu soo noqon oo dhibaato ceergaabo ka dhacda uma baahnin nabad bay u baahan tahay nabadaasaynu ku wada nolosheena ku jirtaa wada jirkeena ku jirtaa midnimadeena ku jirtaa waxaan arkay rag siyaasiyiin oo ka hadlayay arrimaha ceergaabo oo Hargeysa jooga oo ka mid yahay Cabdullaahi Axmed Daamir Cabdullaahi Axmed Daamir waxaan leeyahay war dhibaatadii hore ceergaabina ma joogin nabadeedina ma joogin laakiin cid baa ku warantay si wax kugu warantay waayeelkii nabadii hore joogay nabad colaadeedina joogay way joogaan oo warayso colaadeedii hore iyo nabadoodii horena rag baa ka shaqeeyay ragga horta warayso Cabdullaahi ceergaabo wax badan kama ogid raggii joogay xigtadaada haydeen Ismaaciil Xaaji Nuuriyo colaadii horena wax ka ogaa nabadiina wax ka ogaa Axmed kulli iyo warayso macallin xun baa ku helay nabad ceergaabo khasab ku timina ma jirin dad isogol oo isdhalay oo wada yaalay oo dhibaato dhex martay markii dibna iyaga heshiiyay wanaagna waa ku heshiiyeen wax khasab lagu keenay ma jirto Cabdullaahi markaa waxaan leeyahay warayso waayeelkaaga xog badan ma haysidee waxaan kaloo Cabdullaahi aan leeyahay Cabdullaahi nin wanaagsan baad walaalatiin oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo Soomaaliya meel walba laga jecel meel walba taga anigu waxaan isleeyahay dhakhtarkii Shiinaad qabateen oo midna wuxuu ku siin jiray buu ka jaray ninkaas aad godob u gelinaysaa dunida oo meel walba godob u dhigaysaa waxaan leeyahay waa dhakhtar Shiino oo odaga waxa siin jirtay si Cabdullaahi hadalkiisu waa hadal aad moodin inuu cid gaaray qof shakhsi ku socdo maamulka gobolka iyo mas'uuliyiinta gobolka ee nabadda sidoo fiican u wada ee aanu ku bogaadinayno ee hadiya habeenu soo taagana waxa moodaa Cabdullaahi inuu wax farayo oo fariin diray uu leeyahay guryaha iyo hal la baaro halka waxa jooga maamul deegaanka ka soo jeeda oo gobolka Sanaag u dhashay oo degmadan ceergaabo u dhashay kuwa wax la farayo maaha kuwa wax loo yeedhiyana maaha barasabku waa reer Sanaaga 8 bilood ee gobolka Sool dhibaatadu ka socotay gobolkeena Sanaag waa nabadgelyo qabay nabadana waxa ka shaqeynayay mas'uuliyiinta iyo waayeelka hadeer maanta waa nabad qaba haday wax dhacaana sidii wixii dhacay looga bogsan lahaa oo looga howlgeli lahaa bay ku jiraan Cabdullaahi waxaan leeyahay war maamul wax loo yeedhiyaa halkan ma joogo niman halka u dhashay baa jooga madax ka
oo barasaabaya maayarka marka haddaad adigu wax baadhaysid dee Hargeysa ka kaalayo ceergaabo kaalayo adigu guryaha baadh haddaad wax meel la baadho iyo wax la baadho xiise u qabtid laakiin waxaan ku leenahay fidmo u baahan Cabdullaahi ceergaabo dhibaato u baahan sanaag iyo ceergaabo SSC ka dagaalamaysan ma jirto ciidan SSC oo ka dagaalamayna ma jiro dadka degaankana dhibaato ma rabaan mana doonayaan cidna ku taageeri maayaan dhibaato waxa Cabdullaahi saxaafadda ka sheegay SSC baa ceergaabo soo gashay SSC baa ka dagaalamaysa madaxweynaha fariintaas aan gaadhayaa had iyo habeena TV-ga wuxuu taagan tahay in madaxweynuhu ku magacaabo waxaan oo dhibaato ugu kalifaya sidii Muuse bixi ku magacaabi lahaa war Muuse haddaad u haysid Cabdullaahi magacaabo baan leenahay laakiin ceergaabo SSC-na ka dagaalamayso dadkii lahaabaa jooga sidii maamulku ay uga hadleen barasaabku uga hadlay ee taliye qaybeedku uga hadlay ee guddiga nabadgelyada uga hadlay niman dhalinyaro ah oo sakhraamiina oo ciidanku qabanayeen ayaa dhibaatada ku timi habeenkii dhawata dhacday waxaan leenahay sida guddiga nabadgelyada uga hadashay baan la qabnaa sida guddiga nabadgelyada uga hadashay baan la qabnaa Soomaalidu waxay tiraahdaa guuraraac iyo caruur waa loo kala warrama laakiin isma arkaan Cabdullaahi iyo nabadda ceergaabo iyo colaadii ceergaabo Cabdullaahi waxba kama ogeey guuraraac buu ka ahaa waa loo warramay sida caruurta lagu warramay Cabdullaahi lagu warramay Cabdullaahi marka warba ku soo gaadho xog badan ma haysid baan ku leeyahay nabadda ceergaabo waxay u baahan tahay wada jir wada noolaansho iyo isku hayn qof maanta diyaar u ah ceergaabo dhibaato ka dhacdana ma jirto waana nabadgeliyo wada noolaansho lagu wada joogaa cid khasab ku wada joogtaan ma jirto cid is khasabtana ma jirto meel la isku khasbaana ma aha ceergaabo mindha meel la isku khasbaad ka timiye halkani ma aha meel la isku khasbo wada noolaansho iyo sugol baa lagu wada joogaa arinta ceelafeyn xalay dil baa ka dhacay dilka aad baan ugu xunaa ceelafeyn ay soo noqnoqday waxaan leenahay war ceelafeyn nabadeedu hadday culimo tahay hadday ganacsato tahay hadday dhalinyar tahay ceelafeyn nabadeedu yaa laga daalin ha lagala shaqeeyo cid kasto ceelafeyn nabadeedu wada xildhibaanada gurtada lagala shaqeeyo maamulka gobolka barasaabku horeeya lagala shaqeeyo yaa laga daalin culimada ceergaabo joogta ama gobolka Sanaag joogtana waxaan leenahay shir degdeg ah isugu timaado culimadu waa inta ceelafeyn kaga hawlgelayso culimooy dhiiga daadanaya ee gobolka daadan mas'uuliyad bad ka saaran ha isugu timaado culimada gobolka joogta shir degdeg ah si ay uga qayb qaadato hawsha ceelafeyn oo culimadu hoggaanka ummadda ganacsatadu wax ka qayb qaadato arinta ceelafeyn waxaan leeyahay laga daalin waynu ka xunnahay dhiiga daadanaya dhiiga ugu dambeeyay xalay dhacay dadka ehelka isdilaya ee wada degan ee isdhalay aad bay ugu xunnahay yaa laga daalin yaa la oran ceelafeyn 7 sano dhibaato ka socotay hadday 950 sanadood ugu qaadanayso sidii nabi nuux وين ceelafeyn hawsheeda aan laga daalin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معمل ساعة هالشيء إنترنت يكو هذا الآن حد الهين فضلا كشبو أفر كنوشيلن أو دكان تابر لا تنساعد راح يديك ونسيرون أفرجيس دورة نوع العقدة كديب دورة unlimited دورة لمبر لبا أو دكان تأفر لبا تنساعد كديب قلي لمبر كاغا كديب بين كاغا صمتل وشركة